lagu soo warramaya inay ka taagan tahay gobolka Sool sidii faafahinta amuurta warkaasi uu ku eegayo Cabdikariin Sheekh Xuseen Yacyi Habi. wararka laga helay deegaan ka tirsan gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in deegaan ka mid ah gobolkaasi ay maanta ka taagan tahay xiisad colaaleed u dhaxaysa laba maleeshiyad beeleed oo wada degmada Xudur ee gobolka Sool. xiisada ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii nin shacab ah lagu dilay agaarka degmada Xudur kadib markii ehladii ninka la dilay ay dalbadeen in loo soo gacan geliyo shaqsigii dilka geystay. dadka degmada Xudur qaarkood ayaa waxa warbaahinta u sheegeen in xaafado ka tirsan degmada ay ku wada sugan yihiin maleeshiyad soo jeeda ninka wax dilay iyo kan la dilay iyaga oo laga cabsi qabo inay halkaasi dagaal ka qarxaan. wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in odayaasha iyo waxgaradka degmada Xudur ee gobolka Sool ay wadaan sidii loogu hortagi lahaa dagaalo dhex mara labada maleeshiyad beelood. Cabdikariin Sheekh Xuseen Yacyi, Cabdikariin Habi, Radio Wadani TV.